Wariyaankii hore ee xulka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ee kooxda Liverpool, Emile Heskey ayaa cilaamiyay in uu shiiday ama uu falisay iyadoona lacagtiisa lagu qiyaasi karay 15 milyan oo euro oo dollarka Mareykanka sida ay sheegtay jariidada Daily Star. Ciyaaryahan Heskey ayaa wajahay mashaakilada dhanka maaliyadda tan intii uu ku biiray maalgashi barnaamij lacag farabadan lagu leeyahay deena uu gaaraysa 2.9 bilyan oo dollarka Mareykanka. Macnaha lacagtiisii uu maalgeliyay oo hay'ado iyo kuwa kale ku maalgeliyay sida darteed deemo farabadan ayaa lagu leeyahay taa ayaa sababtay ciyaaryahan Emile Heskey ayaa waxa uu aabu yahay 6 caruura iyadoo sidoo kale lacagaha kale lagu leeyahay ay tahay 120 milyan oo dollarka Mareykanka tan intii 2023 waxaana mas'uul oo sidoo kale ka ahaa horumarinta kubadda cagta 2017 ilaa 2020 sidoo kalena waxa uu qaadan jiray lacag dhan 54.98 milyan oo dollarka Mareykanka. Wariyaankii hore ee kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa maxkamadda sare ee dalka Ingiriiska waxay sheegtay in uu falisay amaba uu shiiday bishii January ee la soo dhaafay 2024 laakiin lacag kale ayuu helay oo isku qadami kara laakiin si rasmi ah ayaa toddobaadkan loo shaaciyay fasilitaankiisa 64 sano jir weeyaan 7 gool dhaliyay 62 kulan oo xulka Ingiriiska uu ciyaaray waxaana tan intii 2009 lacagtiisu ahayd 15 milyan oo dollarka Mareykanka. wariyaankii hore ee xulka Ingiriiska waxa lagu tiriyaa mid kamid ah weeriyaanada ugu qatarsanaa ee horyaalkaasi 110 gool ayuu dhaliyay 33 kamid ah kooxda Leicester ayuu dhaliyay 39 goolna Liverpool halka 14 gool uu dhaliyay kooxda Brigham 15 goolna kooxda Wigan 9 goolna kooxda Aston Villa. Heskey booska 27 ayuu kaga jiray ciyaartooyda goolinta ugu sareysa horyaalka Premier League waxaana goolinta ugu sareeya Alan Shearer oo 260 gool dhaliyay. maalgashiga iyo ciyaartooyda ay sameeyaan ayaa dhibaato ku ah in ay falisaan maadaama aan isku haleyn karin inay lacag ay soo saari karaan ciyaartooy fara badan ayaa jirtay kuwa oo falisay ugu horeeyay Emmanuel Abu iyo ciyaartooy kale.